السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد kusoo dhawaada channelkeenan marka ugu horeysa subscribe-ta ara Soomaalidu waxay hore u taqaaneen wax la dhihi jiray jacayl xaasid hanugu noqon subscribe xaasid markii la yoonsaar gambaleelka channelskana ku dhufo maanta waxaan idin haynaa arrin la yaab leh YouTube meel la yiraahdo ayaa Soomaali oo dhani ku soo yaacday rag baa jira maqaaxiyo sheegay inay ka furteen inuu garan karnaa maqaaxida waa tii shaaha lagu tubi jiray laakiin YouTube maqaaxibu noqday Soomaaliduna caan bay u ahayd in ay inta ugu badan ay isku daydaan waayo Soomaalidu inta badan qof haduu meherad furo mid kale ka hor furaya markaas waliba waa Soomaali oo lacag loo sheegay oo lagu YouTube lacag ay ku jirtaa maanta waxaan falanqeynaynaa YouTuberiska Soomaalida iyo marxaladaha ay kala joogaan ay u dhaqmaan sida ay yihiin waxaana ila falanqeynaya Shaarub waxaad noo sheegaysaa YouTuberada Soomaalida ugu faanka badan شنو علي sababtu ninkan shamlo qaxootiya ayuu meel ku soo runay qol marka soo oranaya intan waxay taageertay 5,000 oo Soomaali in ka badan ayaa taageerta markaasuu ku soo runaya dadka meesha soo reeshan 5,000 oo Soomaali in ka badan bay taageerta marka indaha slimka warkay anaguna waan aragnaaday marka waxaan oran karaa YouTuberada ugu faanka badan leh YouTuberada Soomaalida ugu xaasisan waa kuma ugu xaasisan YouTuberada ugu xaasisan cid walba ana garanayso waa ninka la yiraahdo Idris Lacab sababtu salaam hadda ku soo qaado farmaajo soo la garanay madaxweynaha Soomaaliya hadii la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo reaction soo qaato wuxuu oranayaa ninkan magaciisa weyn ilaaway markaan soo eego ninka ugu xaqirsan ugu xasan waayo title-ka ay magacaas u xasidey ka ugu codka xun waxa oran karaa waridaad oh my god waridaad magacaas waridaad YouTube ay waridaad ku qoratay adiga waridaad tuulo ها وحفلة وتولا سومالي توليك سومالي متى كم دينا تاي أنا قلت أقول مرة لكن ولي قوي مرة لا يرتدي مرتري سببت محيط هاي سببت حوالي نكاس سنة ومركز دقيسين سو وايد دتك قاربة عدكو انترستين لي هاي سجن انترستين ماله سيدا درت دسبوع سكرنا ينا عدك زحية هاي فيديو أم سوق سبوع بقريبة مركز سجا سوق بقى إنه عد حية يوتيوبر الصومالي ده كوجو نكسن كوجو نكسن كراوا كيسيكي very nice oh my god wow sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye ninkaas waa nin aad u bulshiya waa nin adoon kale aad u reer magaal ninka tusaale qof soo qaadanaya ama cid uu raash ka bixinaya cidda magaceeda inkastoo nimanka raash ku dadka wada qalaan laakiin si isagu dad nimanka raashnada sameeya uu ka xaq jira qofka magaciisa uu soo qaadanaya si wacan magaraysa uu wixii uu shaqadiisa u taacad ninkaas qolkiiba boqolta YouTube daawanaya qiimeynay ugu akhlaaqda xun YouTuberada waa akhlaaqda xun waxaan maleynayaa ha way daadi ninka ii daadi ku qoratay ii daadi magac waa ii daadi baa ku qoran marka YouTuberada daawto ii daadi kala soo baxay ninkaas waxa la daadinaya markaas ma garanayo ii daadi waxaan garanaayo laakiin se ninkaas afar saacad buu caayay xumaan buu ka sheekeynay way qofka in yar uu leeyahay wanaagsan qof way wanaagsan xun uu leeyahay waqti marba qof maanta ka hadlay waa caayay soconays ka ugu waalan YouTuberada Soomaalida ka ugu waalan waa odaga leeyahdo dhaka weynana mar ugu qoran tahay mar leeyahdo إيش هيك مقعد أبوانdirne ma jaajilaystaha riwaayaduhu ka dhamaadeen inuu sameeyo reactionada isu bedelay guri bro dabcan ha aniga guri bro qamse guray barwaaqo ma garanayo adigu guri iyo guriga anu markii hore magaca la yaabi jiray laakiin waxaan ogaadin rag leeyado anu magaca la yaabo markii basiir hore kamid ah wasiirada Soomaali maxfilaya ma isha wasiirka warfaafinta magacaas san markaas ogaaday inuu yahay magaca dadka ragna loo bixiyo adiyad marka waxa weeye ninkan waxaan u arkay markaan qiimeeyay horta riwaayad dambe uu soo sameeyay maanan arag markii hore waxaan qayb telefonkuna de wax la bartay mugti magarasa artigan filmmaking-ka
marka waxa riwaayad yar bal soo sameeyay xoolaha film wixii horta 40 minute ka yar film lama yiraahdo tusaalahan film waxyaabo badan buu baahan yahay waxa iska riwaayad bi sameey jiray riwaayadii markay soo dhamaatay soo dhamaatay way soo idlaatay caalam filmada dawana soo idlaatay Hollywood iyo Bollywood ba sheekooyinku waa soo dhamaadeen marka reaction kuna marka waqtiga la isticmaalo iska riida marka san riwaayadu waa soo dhamaadeen isoo kaliya maha soorani jawaab waa ka dhamaadeen nimankii ray kale marqaan iyo muruji iyo mudxiyada iyagana waa ka dhamaaday marka dadka subilamide marka nin aad u creative weeye riwaayadu ku soo baxay riwaayadu ku soo baxay YouTube qofka lacagteeda dhamiyo la aad bil lacag macaan tibogto aad ma aad ku heshaa waa shaqo xora oo cid garasa oo meeradaad sidaad u tadkiilayso marka uu fakiray reaction bilaabay reaction sunu iska fiican markii hore waa in tol af Soomaaliya ahaa sheekooyin uu sameeyaa oo nin daad u kiriyo maskax badan illa reebaya ma jirto Soomaali Maxamedey marka rag way kala horeeyay illa ilaaway ma jirto illa ilaaway fanaaniinta الله مستعان فنانينتا سياسيينتا warbaahinta cid la reebaya ma jirto subscribe-ta hanaga xaasidina muuqaalkan noo amba bixiya horta Soomaalida fariin baa loo diraa oo Soomaalidu way waxbay ilaawaan muuqaalkan noo amba bixiya like subscribe share intaba de inaan isugu iman waxa way marka fariinta ugu dambeeyay xaqiiqa rag way kala horeeyaan laakiin cid la ilaawa ma jirto youtuberada maanta ugu horeeyay fanaaniinta ku xiga shooda fanaanka ku xiga siyaasiga ku xiga ma garanaysa waxyaabo qiimeyntu way socotaa marka cid walba hayse saxad cidii khaladaad lagu sheeganay saxad cidii kale wanaagii hormar lagu sheegana hasiyo hormariso waa intaas youtuberada Shar Films iyo Jakarta Sumayn halkaan ay kooda socono